Alle ha u naxariistay Jenaraal Sheegow Axmed Cali geeridiisa kadib, waxaa soo ifbaxaya xogo la yaab leh oo ku aadan geeridiisa degdega ahayd. Haddaba xaqiiqooyin iyo xogo kale oo waaweyn oo ku aadan askartii ilaaladiisa ka midka ahayd ee xabsiga ku dhex xanuunsanaysay ayaan xogo waaweyn kaga hayaa. Waxaanan waraysi la yeelanay mid ka mid ah raggii aadka ugu dhowaa arrimaha Jenaraal Sheegowna u dhuunduleelay muddadii sanadka iyo dhowrka bilood ahayd ee uu xabsiga ku xirnaa. Soo dhowaada oo muuqaalkeen like saar, la wadaag saaxiibadaada kale oo share dheh, kuna soo bir barteenana Somali Bantu TV si aad u hesho warbixinadeenna ku salaysan xogta iyo xaqiiqda rasmiga ah. Alle ha u naxariistay geerida Jenaraal Sheegow Axmed Cali ayaa waxaa si weyn uga xumaaday isla markaasina uga naxay guud ahaan qowmiyadda Jareerweyne oo ay lama filaan ku noqotay geeridiisa. Alle ha u naxariisto Jenaraal Sheegow Axmed Cali ayaa dhowaan lagu aasay tuulada Baqdaad ee uu ku dhashay. Alle ha u naxariisto, jannadii firdawsana ha ka waraabiyo. Qaybta hoose ee commentiga aynu ugu wada duceyno. Haddaba maxaa ka soo kordhay arrimaha Jenaraal Sheegow? Waxaa jira kulamo waaweyn oo lagu duceynayo Jenaraal Sheegow Axmed Cali, kuwaas oo la filayo in maalmaha soo aadan ay ka qabsoomaan qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, si la mid ah dalka Kenya iyo Mareykanka, oo ay dhalinyarada iyo weliba odayaasha qowmiyadda Jareerweyne ay qorsheynayaan in kulan duceedyo waaweyn ay isugu yimaadaan isla markaasina lagu duceynayo Jenaraal Sheegow Axmed Cali. Sidoo kalena buugga dacsida ee Jenaraal Sheegow laga daahfuri doono qaybo ka mid ah gobollada dalka iyo dalalka deriska ah. Sidoo kale waxaa jira xogo waaweyn oo soo ifbaxaya, kuwaasi oo maalinba maalinta ka dambeysa muujinaya isla markaasina dibadda u soo saaraya shakiga ah in la sumeeyey Jenaraal Sheegow Axmed Cali. Mid ka mid ah raggii aadka ugu dhowaa arrimaha iyo xaaladda Jenaraal Sheegow, Alle ha u naxariiste, oo aynu waraysi dheer la yeelanay, ayaa inooga sheekeynaya qaabka ay wax u dhaceen. Shakhsigaasi ayaase naga cudur daartay in loo qariyo magaciisa iyo si la mid ah codkiisa oo aanu markaa bedeli doono arrimo amnigiisa la xiriira awgeed. walaalow Jenaraal Sheegow Axmed Cali waa la dilay, dowladda Soomaaliya ayaana ka dambeysay dilkiisa, gaar ahaan rag qowmiyadda Jareerweyne ka tirsan ayaa jenaraalka dilkiisa gacan ku leh. walaalkaygiiyow, waxaa kaa codsanayaa inaad codkayga qariso, sidoo kalena magacayga aadan la wadaagin dadka, adigoo amnigayga tixgelinayo. Jenaraal Sheegow inta aan la xirin ka hor waxaa jirtay rag mas-uuliyiin oo Jareerweyne leh oo ka dhashay oo soo wacayay. Inta aan la xirin ka hor Jenaraal Sheegow ayay dhowr mar soo waceen, casuumaad ayay u fidiyeen, waxay u sheegeen in arrimaha uu wado uu ka baxo, oo ahayd in uu xoreynayo deegaanada beelaha Jareerweyne ka soo jeedaan. Jenaraalka warkooda dheg uma dhigin, waa uu ka dhaga furaystay, shaqadiisa ayuuna watay. Balse Jenaraal Sheegow meeshaas cuqdad ayaa loogu qaaday, waxaana laga shaqeeyey oo loo diyaariyey shirqool ah in isaga xabsi lagu rido. Waa tan dhacday oo la yiri loona diyaariyey qorshe ahayd in ciidamadiisa qayb ka mid ah ay moobeelo dhacayeen, isagana uu lacag dhaqayay, xabsigana sidaas lagu geliyey. Waxaa jira rag badan oo beelaha Jareerweyne ah oo arrintan ka dambeeyey. Xitaa waxaa dhacday hadda dhimashadiisa iyo xanuunkiisa in madaxweynaha Soomaaliya $200,000 looga cunay oo laga soo qaaday. Jenaraal Sheegow waa lagu daaweynaa darteed looga soo qaaday, balse aanan waxba jenaraalka loogu tarin. Dadkii aqoon-yahanka ahaa iyo sidoo kale dad badan oo siyaasiyiin lacaga looga aruuriyey iyo qurbo joog iyadiina la cunay. Hadda markii uu geeriyooday madaxweynaha, lacag 60,000 ayuu sidoo kale soo dhiibay oo ahayd in jenaraalka lagu aaso,
eeladiisana wax laga gaarsiiyo. tiina waa la lunsaday oo rag siyaasi waa rag oo markaasi jirir weyne ah baa arrintii markaasi ku tagrifalay. hadda xilliga la joogo ragga jenaraal sheegu shirqoolay ee shirqoolkan u maleegay waa liibaan cali yarow, daawo suusow iyo sidoo kale ciimooy iyo markaasi dad kale oo iyaga markaasi weli ku daba jiro xogtooda inaan soo helo oo aan soo gudbiyo. dadkaas waa dadka generaalka dhabarka ka toogtay, xabsiga ku iloobay, wax badan oo generaalka loo qaban lahaa danahooda ka dhex arkay, dhaqaale inay ka samayn karaan ka dhex arkay, dhaqaalihiina sidaas ugu sameeyey. lacago badan oo jenaraal sheegu madaxiisana ay ku cuneen, generaalkana waxay go'aansadeen in weligiis xabsiga ku dhex jiro, sumayntiisana iyaga qayb ka ahaa. cid kale oo maanta wax laga weydiinaya ma jirto arrinta jenaraal sheegow. dadkaas ayaa ka dambeeyay dhimashadiisa, iyaga ayaana falkaasi geystay, waana kula xisaabtamaynaa. waxaan rajaynaynaa doorashooyinka soo socda in dahabo suusow iyo xildhibaan ciimooy aanan lasoo siinin kursiga dibna aysan u soo helin. taasna go'aanan ka qaadanay. xildhibaanadan fadhiidka ah dhammaantoodna dagaal iyo halganaan la galaynaa. بروسيسكي لما سيجي قفك دو محبسي على مرسي دب مجرتي على دنتي نين ديلي مالا نين سميي مالا